soo dhawaada mar kaleeto daawadayaashana qiimaha badan mar waliba waxaan soo gudbinaa barnaamijkii ugu habboonaa ee qiimaha badna isla mar ahaantaasna hadda waxaan soo deynaynaa barnaamij ku saabsan keynta loo yaqaano KARURA forest maxaad ka baran kartaa caasimadaha dunida ku yaala maanta waxaan joognaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan joognaa keynta aan magaceeda hore noogu soo sheegay waata halkani waa goobta la dhigo gaadiidka isla markaasina marka goobta soo gashid aad gaadiidka dhiganaysid isla markaasina halkaas ayaad ku baakimaysaa ugu horreyn keyntani lama ogola gudaheeda iyadoo aad u weyn inaad ku dhex socoto gaari taasoo ay ku celinayaan security-ka goobta ilaalinaya isla markaasina daryeelaya goobta waata hatta waxaad arkaysaa muuqaalka guud ee beerta lagu nasto isla markaasina beertaasi ay ku sugan yihiin dad aad iyo aad u nasanaya familada asxaab dad isjecel dhamaantooda ay ku nasanayaan xilligooda iyo waqtigoodana ay ku qaadanayaan waatahay gudaha ayaan u gali doonaa waxaan arki doonaa guud ahaan maxay leedahay keyntani waxay leedahay meelo biyo dhacya isla markaasina loogu talagalay inay dadweynaha ay ku nastaan isla markaasina ku raaxaystaan soo xasuuso ku galaan waxa kale ay leedahay dhir aad u dheer oo isla markaasina indhahaaga ay qabanayaan taasi oo ah mid la ilaaliyo iyadoo loo ogoleen caaga balastiga iyo bacaha inaad meeshan aad ku tuurto iskana ilaali haddii aad goobtan timaado inaad wax plastic ama caag ama halkan aad ku tuurto ma baca waxaad arkaysaa goobo loogu talagalay dadka orodka ama orodyahanada isla markaasina inay ku ordaan isla markaasina ay ku aliminteeyaan ama dadka sonkorta qaba ama sida kaleeta cudurrada kala dariska ah ama cayilka oo kaleeta inay iska dhimaan rabaan waxaad arkaysaa wadooyin dhexmaraya isla markaasina dadka qaar way lugeynayaan qaarna way ordayaan waxa lagu ogol yahay wax gaadiidka loo yaqaan baaskiilka oo kaliya isku weerkeeda waa 12 kilomitir dhinac walba waxayna leedahay 4 albaab oo aad u waaweyn isla markaasina waxa ay kaleeto leedahay meeshani oo xayawaan oo ku sugan oo kaliya waa xayawaanka loo yaqaan daanyeerka iyo doofaarka labadaas kaliya ayaa goobta ku sugan wax xayawaan inta kale waa shimbiro iyo adiga oo kaliya bini aadan waxayna ku taalaa bartamaha magaalada Nairobi waxa jooga community loo tababaray sida ay dadka wala macaamilayaan goob kasta waxaad ku arkaysaa fallaar ku tilmaamaysa ama kiiloomitirka meesha aad rabto ku geenaysa waxa kale oo ay leedahay meelo aad u waaweyn oo ah jamallo hoostooda isla markaasina sawirro farshaxan ay ku suuran yihiin taasoo ay dadka qaar sawirro ku galaan dadka qaarna ay waliba in badan oo kamid aad ka dareemaysid inay yihiin dad aad u xiiseynaya waatahay hadda waxaan gudaha u sii galayaa keynta waxaan qaadayaa wadadii igeen lahayd meesha biyo dhaca waxaan jeclahay inay idinihiin igula soo aragtaan oo aad isoo raacdaan qaasatan mar waliba waxaan nii tilmaamayaa waa halkan waxaa ku qoran waterfall oo ah meesha biyo dhaca si aad aragto biyaha halkan ay ka bilowdaan balse waxaan tagi doonaa guntooda hoose iyo meesha u degaan waxaad arkaysaa biyahani inta badan ma aha kuwa baxa balse waa kuwa sida webiga oo kaleeto u samaysan kana soo dhaca dhul buuraley isla markaasina si taxadar loo ilaaliyo saad arkayso hoosteeda waxa ku sugan dadweyne aad u fara badan qaarkood sawirro galayaan qaarkoodna ay weli nasanayaan oo waliba ay meesha socod dheer ku galayaan waxa lama huraan haddii aad goobtan timaado in mar waliba aad ku soo taxadarto oo aad ku soo talagasho socod dheer iyo waliba waqti qaadasho aad u dheer waxay ku noqonaysaa maalin qurux badan haddii halkan timaado waxaad arkaysaa lamaanayaal isjecel oo sawir isla galaya isla markaasina goobta ku sugan iyo dadweyne aad u fara badan biyaha halkan ayay ka soo dhacaan sidaad u jeedo biyahani waa kuwo isla markaasi dadka ay jecel yihiin isla markaasina sawirro ay iskaga qaadayaan waxaa ogtahay ama aan ognahay in mar waliba laamaha dowladda hoose ay mar waliba ka shaqeeyaan quruxda iyo bilicda caasimadooda taasi oo u suuragelinaysa dadweynahooda iyo dadweynaha caasimadda u soo dalxiis taga inay u yimaadaan goobo sidan oo kaleeta caasimad kasta waxaa lama huraana goobo ay ku faanto inay lahaato balse ma tahay midaad wax ka baran karto adiga daawanaya waa tahay indhaha ayaa ku macalina waxaa jooga dadweyne aad u fara badan oo ajnabi oo kala nooca kala diimaha kala dhaqana isla markaasina waxa asaas u ah nabadda mar waliba ay nabaddu ay jirto goob waliba adduunka kamid waxay noqotaa meel ay dadka ku soo hayuumaan oo u soo bataan isla markaasina
ay soo buux dhaafiyaan. waxaad arkaysaa shimbiro duulaya hawada isla markaasina ayagoo qaylo dheer ama sawaxan ku dhawaaqaya. haddii aan jidadkeeni hore u sii qaadno oo aan aadno bal biyahani iyo halkay ka soo bilaamayaan aan dib u sii raacno, waxaan aadi doonaa keynta ayaan gudaha u geli doonaa. waxaad arkaysaa wadooyin qaas oo loo sameeyey, balse wadooyinkan looma ogola gaadiidka. sababtaan loogu ogolan waxay tahay qiyaca ay sii deynayaan baabuurta, taasi ay ugu wacan tahay daryeelka la daryeelayo dhirta oo laga taxadarayo. ma la rabo inay dhirtaan noqoto mid dhimata ama la jaro, intaba waa laga ilaaliyay. taasi ayaa waxay dhigaysaa mar waliba uu shakhsi bini'aadana uu soo booqanayo goobtani waxay u kala baxaan laba qayb. mar waxaad goosanaysaa kaar member ah kaasi oo ah xilli walba aad ku soo geli karto, aad bixinayso 6 bilood hal mar lacag aad u yar oo gaaraysa ilaa $25 ilaa $15 u dhaxaysa. waa 6 bilood, balse maalinla haddaad u imaanayso waxaad bixinaysaa lacag gaaraysa ilaa $4 ayaa laga qaadaya. waxaan arkaynaa markaan biyahani degan iyo sida ay yihiin, iyo weliba indhahaaga marka ay qabtaan iyo leerta macaan ee ka soo dhacaysa geedaha sida ay tahay. bal aan eegno oo si tartiiba ah aan ku tusno. waxaad arkaysaa biyahani inay laba rogmayaan, isla mar ahaantaasina waa mid bini'aadan uu gacantiisa ku sameeyay, taasoo ay ka shaqeeyeen xarumaha dowladda hoose. mar walibana dhirtani waa mid ayada laftirkeeda qarashkeeda dib loogu celiyo iyo daryeelkeeda, oo waayo meel walba waxaa taagan dadkii loo tababaray inay dhirta daryeeleen. meel walbana waxaa ku xiran kaamirooyin qaas ah oo ilaalinaya dhirta iyo deegaanka. wadooyinkeeda waa wadooyin aad iyo aad u qurux badan, isla markaasina ma aha kuwa aad ku dhex lumayso keynta dhexdeeda, balse waxaa ku hagaya fallaaraha iyo magacyada jeero walba iyo halkii aad ka timid iyo halkii aad ku socotay. dhirtu waa kuwa aad u dhaardheer, balse ma yihiin dadka Soomaaliyeed kuwa daryeela dhirtooda. caasimad waliba ama meel waliba waxay leedahay meelo qaas oo lagu garto. markani waxaan u soo dhaqaaqnay qaybteena siinada. waxay leedahay ilaa 6 beerood oo sidaan oo kale mid waliba waxay leedahay darjiimo ay dadka fadhiistaan, isla mar ahaantaasina ay ku nastaan. faamilada, dadka isjecel, kuwa is aroosaya, kuwa xalfadaha dhiganaya, kuwa nasanaya, kuwa isku xiisay, intaba goobo ay dadka u fadhiyaan iyo raxan. mid waliba waxay u sheekaysanayaan si degan oo naxariis ku jirta, ayagoo waliba cid kale fiirinaysa aysan jirin, balse mid waliba ku taxgelinaya ama ku qadarinaya habdhaqankiisa. waxaana guud ahaan kor ka sii ilaalinaya community-gii ama dadkii loo tababaray ee goobta joogay. nasiino badan kadib, annagoo darjiimankeena iska fadhina, qorrax fiican iska qaadanayna, socod badan kadib, markaan halkan ku nasanaynay ayaan waxaan jeclaystay daal badan kadib waxaad arkaysaan nasiino annagoo kabaha iska bixinay, dabadeedna dhulka fadhina. waad u jeedaa bilicda geesahayga iyo dadka say u wada fadhiyaan, annagana sidoo kale ayaan fadhinay. waxay ahayd maalin qurux badan oo weliba aan ku qanacsanayn jawiga. intaan kanoo kale ku kulmayno, aad ayaan ii salaamayaa.